Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan u wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Mar kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aad iyo aad cara ay ugu muuqato wejigiisa sidoo kalena hadallo xanaf leh ay ka soo baxayaan ayaa waxa wareysi gaar ah siiyay telefishinka Fox News. Weerarkii xalay ay fuliyeen Sacuudiga iyo Mareykanka oo wadajir ahna waxaa leeyahay waxaa ku geeriyooday qaar ka mid ah askarta ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo ka howlgalayay ama gacan siinayay kooxaha Iran ay taageertay ee ku sugan gudaha Ciraaq. Dhinaca kale Mareykanka iyo Itoobiya ay ka dhex tafatay taas oo ishuursanaan badan muddo ay ka socotay iyadoo mararka qaar la filayay in ay kor u soo kici karto xaaladda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Itoobiya. qodobo kale ayaa raaci doona haddii aan waqti u helno. ma doonaysaa inaad xifdido qur-aanka sidoo kale ma jeceshahay inaad barato shareecada haddaba markiisa kifaax online waxay idii soo kordhisay fasallo online ah oo lagu xifdiyayo qur-aanka kariimka ah sidoo kale lagu dhiganayo duruusta ay ka mid yihiin tafsiirka fiqiga siirada adkaarta ducooyinka iyo carabida haddaba arday iska diiwaan geli lambarada shaashada kaaga muuqda. aynu ku horeynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wareysi gaar ah uu siiyay Fox News ku sheegay in Mareykanka uu si xoogan u weerari doono Iran isagoo ku tilmaamay inay jawaab u tahay weerarkii lama filaanka ahaa ee saqdi dhexe xalay ee lagu qaaday saldhigga ciidanka ee Mareykanka ku leeyahay dalka Jordan. Trump ayaa yiri waa dad nacalad ku dhacday waxaana u duqeyn doonaa si xoogan waxayna la kulmi doonaan ayuu yiri weerar aad iyo aad u culus taas oo dadka qaar ay u qaateen in afka baarkiisa un laga dhahay aysan runna noqon doonin oo Mareykanka wixii u dambeyn lahayba uu mar hore soo hormarsaday. dadka qaar ayaa aad iyo aad ula yaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hanjabaadda uu wada tan iyo markii uu dagaalka bilowday iyo kahor inta uu dagaalka bilaaban. wixii dhacay ee ugu weynaa dagaalkana waxa ay ahaayeen in la dilay hogaamiyihii dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei laakiin Iran wax kale oo soo gaaray ma jirin. weli waa ay nooshahay oo ay dagaalamaysaa dalka Iran laakiin Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hanjabaadii ayaa ka dhamaatay waa sida ay qabaan falanqeeyaasha caalamka ee dhinaca kale duqeymaha diyaaradaha Sacuudiga oo taageero ka helayay Mareykanka ay xalay ka fuliyeen bariga Ciraaq ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 4 xubnood oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo xilliga duqeynta ay dhacday ku sugnaa saldhigga uu leeyahay ciidanka ay leeyihiin ciidanka xisbu shacab oo ay taageerto Iran sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iran ku dhow ee dibad ee xiriir dhow la ciidanka ilaalada kacaanka Iran. dhimashada xubnahan ayaa ku riixi karta kooxaha Iran ay taageerto ee ka howlgala Ciraaq in ay weeraro argoosi ah ka fuliyaan gudaha Sacuudiga iyagoo toddobaadkii hore diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku beegsaday warshadaha sifaynta shidaalka ee Sacuudiga taas oo dhalisay weerarkii xalay Sacuudiga uu ka fuliyay dhulka Ciraaq. haddii aynu fiirino dhinaca Afrika gaar ahaan bariga Afrika Itoobiya ayaa dareen ka qabta Mareykanka inuu la shaqeynayo dhinacyada ka soo horjeeda ee ay loolamayaan ama ku loolamayaan geeska Afrika iyo wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee African Report uu fadhigiisu yahay Faransiiska uu u janjeero dhinaca Itoobiya oo 2 maalin ka hor baahiyay in Itoobiya ama la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee Afrika uu wada hadallo la yeeshay dalal loo arko in ay sameysanayaan isbahaysi ay hogaaminayso Masar oo ka soo horjeeda Itoobiya taas oo shaki badan ay ku gadaaman tahay waa sida ay qabaan falanqeeyaasha caalamka ee wixii ka soo baxa waxaanu ku faahfaahin doonaa muuqaaladeena iyo wararkeena dambe insha Allah.